بسم الله الرحمن الرحيم. magacaygu waa Taysir Jaacan Barre Xaashi. awalan allaha weyna waaxidka bay mahad u sugnaatay. waxaan halkan uga mahad celinayaa xarigayga dadkii ka gubtay sida sharci darrada loogu xiray degmada Booq, run ahaantiina ii garab istaagay sida gobonimada iyo sharafta leh oo xukuumadda dowladda deegaanka Soomaalidu ay ugu horeyso xafiiska madaxtooyada, wasiirada, baarlamaanka, xafiiska sirdoonka. xaqiiqatan waxaan u rajaynayaa qof kasta oo ummadda Soomaaliyeedna sidaas in loo garab istaago oo runtii si sharci darro ah lagu xiro. runtii waxay xiray maamulka degmada Booq iyo dowladda hoose. waxaan leeyahay maamulka degmada Booq iyo dowladda hoose, qof ganacsada ah oo dalka dakhli bixiya oo canshuur bixiya ah oo ini garab taagan fikirka uu ka hadlay inaad ku dhibaataysaan oo uu 10 beri xabsi ku mutaysto, waxa iniga fiican inaad geed beertaan, inaad nadaafadda magaalada hagaajisaan, inaad hooyo ooman waraabisaan, aabba daalan inaad nasisaan, bulshada inaad wax u qabataan, wiil yar oo wax baranaya inaad iskoolka geysaan. taas ayaa iniga sharaf badan. waxaan rabaa halkan inaan maanta ku cafiyo maamulka degmada Booq iyo dowladda hooseba. haddii aan kala aargoosanno waxaan waayeynaa shacab walaalo ah, waxaan waayeynaa horumarkii aan ku fakerayay, waxaan waayeynaa taariikhdii aabbahay lahaa. xaqiiqatan anigu ma raba xil, mana doonayo, laakiin waxaan doonayaa taariikhdii aabbahay lahaa, tii adeerkay lahaa iyo tii awowgay lahaa inaysan noqon mid ku baaba'da muddo 5 sano ka yar. xaqiiqatan aabbahay wuxuu sii dayn jiray xabsiyada Itoobiya ka sii dayn jiray toogasho dad ku xiran, Hayle Salaase iyo Migistaba. wuxuu maalkiisa iyo xoolihiisa aabbahay Jaacan Barre Xaashi ku bixiyey bulshada Soomaaliyeed inuu garab istaago. xaqiiqatan cid kasta oo bulshada rabta inay boobto, inay dhacdo, inay khiyaanto, inay ubadkooda keliyana ay noolayso, ubadyada kalena ay birayso, marnaba fikirkooda ma taageero. waxaan taageeraa qofkii daacada. aabbahay nin baa wuxuu ku yidhi taariikhda sidaan ku hayo, Jaamac Barre ilma xalaalada igu dar, hebelow qabandidii ma iska daysay biyo maya biyo ilma xalaal se u noqon kadhaa biyo qabandidaa cuntaay. xaqiiqatan qof qabandi xadaya ama lacag masaakiin leedahay xadaya ama ummadda wixii loogu dhiibay aan u cadaalad samaynayn ama qof dulmiyaya oo dhibaataynaya, ma u malaynaysaa inaan taageeri karo? aabbahay horey uma taageerin, anna ma taageeri karo. anigu xil ma rabo, in badan ayaan sheegay, laakiin waxaan rabaa inaan noqono kuwa daacada, kuwa ummadda samanta bixiya, kuwa ummadda wax u qabta, kuwa aamin ah oo la aamino, oo lagu aamino xilka iyo hantida iyo maalka ay hayaan loogana dambeeyo. haddii qof kasta yidhaahda waxaan anigu igu fiican yahay, gaariga anigu igu fiican yahay, guriga anigu igu fiican yahay, gogashu anigu igu fiican tahay, gabadha cad anigu igu fiican tahay, wiilka quruxda anigu igu fiican yahay, ilaahay taas ma ogola. walaalkaa la jecelo wixii aad jeceshahay. magaaladan haddaad aragtid inaad adigu hormarin karin, qofka hormarinaya u dhiib furaha. ha ku dheganaan, dadkana ha u horseedin in la isku laayo bahbah, in la is-aanaysto, in cuqdad la iskala geliyo, in kansar dadkan u baaba'o. xaqiiqatan qof kastoo cuqdad qaba kansar buu dhintaa, mana sii noolaado. adeerkay Candhaf Xaashi oo 105 sano jira ayaa saldhigga degmada Booq 6 jeer iigu yimid. maamulka degmada Booq iyo dowladda hoose waa markaan ogaaday xukunkoodu inuu caadi u dhacay kuna fashilmeen. aabba Soomaaliyeed oo Booq ugu da'weyn intuu saldhigga soo istaago 6 jeer in la celiyo waa wax aad u xun, waa wax nasiib darro ah, waa wax laga naxo, waa wax maaragtay kulliba taariikhdan baal madow ka galay. ciddii ka liftayna waa la isla ogyahay. xaqiiqatan waxaan rajaynaynaa ummaddan inaan sabatan bixinno, inaan annagu walaalnimada keenno, inaan annagu iscafiska keenno, inaan iscafis bixinno. Booqoo laami leh, booqoo layr leh, booqoo beera leh, booqoo walaala ah, booqoo dadkaani la mideeyo inaan annagu sababnaan rajaynaya haddii alla idmo. wax kastoo ay nagu dhacaan, burbaando kastoo la igu sameeyo, dhibaato kastoo la ii geysto, jirdil kastoo la igula kaco, dhib kastoo aniga shakhsi ahaan la ii geystana, waxaan naga ballanqaadaya adduun iyo aakhira waa naga cafi. adduun iyo aakhira waa naga cafi. saldhigga degmada Booq 10 biro aan ku xirnaa, xitaa waxaan odhan karnaa lagama faa'iidaysan xooggayadii. hadday beerna geeyaan shacabku leeyahay ama masaakiintu leeyihiin oo aan fallo, xitaa waxa la odhan karaa xooggayadii baa laga faa'iidaystay. war qofkaani markaad cidlo geysid oo ciriiri gelisid oo aad god ku ridid, haddii xooggiis xitaa aad ka faa'iidaysan, horumar ma aha. waxaan rajaynaynaa saldhigga booliska kulliba dadku waa wada gelayaa baan u malaynayaa. qof kasta nabsiga wax lay dabayla xagaaga wadee, war bal tuuba biyo gelina sii gashta, runtiina beer ah ku jimicsataan oo dadkan qudaarta aad uga soo saartaanna sameeya. meel gaaroo lagu tukado oo masaajidana u sameeyo nadiif ah oo qofku salaada markuu tukanaya keliya xor laga dhigo
وحرية dareemo weysadiisa iyo suuligiisa iyo masaajidkiisa iyo salaadiisa iyo kitaabka quraanka oo akhrinayo ku tixgeliya anigu intaas sii samaystaan oran lahaa haddii alla idmo kolleyba suuli aan lahayn albaab oo qolka ku dhex yaal baa inaga horeeya oo aad u wasakhaysan hadda ma aragtaan laakiin mar baad arki doontaan haddii alla idmo waxaan rajaynayaa bulshadaanay ciddii horumarin lahayd xilligeedii baa la joogaa wakhtigiinnina waa dhammaaday waxaad qabateenna taariikhda unbaa ina xusaysa ilmihiinnaana dhaxal u reebteen hadduu fiicnaa iyo hadduu xumaaba wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu